gobolada dhexooydin tii ugu weynay gobonima u dirirkii midii goolka dhalisay leegada gunteeday gurigii xorriyaday calanka shangeeska midii golaha keentay geesiyooni weyn dhalaa galkacyoy maxaa dhacay galkacyoy maxaa dhacay gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku taala bartamaha dalka Soomaaliya ayaa magaalo ay ku soo laabteen colaado isku dhacyo beeleed oo u dhaxeeya dadka wadada gobolka Mudug kuwaas oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada ku wada nool magaalada isla markaana bilaabay inay ka barakacaan magaaladii ay ku dhasheen si ay u helaan wax ay kaga badbaadi karaan colaadii joogtada ahayd ee ka dhici jirtay magaalada Gaalkacyo magaalada ayaa waxay gashay dhowr sano xasiloon daree taasoo dhibaato weyn u geysatay bulshada ku wada nool gobolka Mudug waxayna badankooda ay go'aansadeen inay gaaraan gobolada kale maadaama colaadu ay noqotay mid joogto noqotay ninku asagoo u soo doonan waaya gurigiisa casho oo gaajaysan isagoo laga yaabo inuu u jiro wax aan dhammayn 10 tilaabo oo gurigii iyo meesha uu fadhiyo inta u dhaxaysa isleeyahay ama wax kaaga imaadaan waa caqabada koobaad ilmihiisii oo si fiican aysan isku aqoonin laga yaabo maalinkiina inaad xoolo raactahay ama baadiyaha jidid qoraxdu markay dhacdana aad isleedahay gurigii ilmihii aad soo salaantid haddii dhibaato kaaga imaanaysa waa mid labaad midda saddexaad waxaa laga yaabaa laanta qurux hadda muuqato kale meel inoo jidha in roobka du'o haddana aad guri weyd xoolahaagina ay u baahan yihiin naqi iyo roobki ayadoo ay kalifayso haddii reerka kale ka soo horjeestay kula deganaa oo aad cadow isku tihiin wixii ka dambeeyay kacdoonkii dhalinyarada nabadda isdhexgalka gobolka Mudug ay ka bilaabeen magaalada Gaalkacyo oo ahaa in Gaalkacyo aysan xamili karin colaad kale loona baahan yahay in la walaaleeyo shacabka ku wada nool gobolka Mudug kuwaas oo horay u kala aamisnaa fikrado kala duwan ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu guuleystay in meesha laga saaro wixii la oran jiray qadka cagaaran iyadoona bulshada qaar ee ku dhashay magaalada Gaalkacyo ay la yaab ay ku noqotay markii lagu guuleystay in magaaladu ay noqotay hal waxaana hooyooyinka qaar farxad darteed ay la ilmeeyeen markii ay ogaadeen waxyaabihii horay loo sheegi jiray ardayda waxay garatay odayaasha garawaayeen nabadda ardayda raadin waysa dadka Soomaaliyeed waa garawaayeen ilaahay waxa ka barinayno ilaahay nabad siiyo ilaahay waxa ka barinayno ilaahay nabad hada siiyo ardaydan ilaahay anoo qaad ardaydan nabadda raadinayaan ilaahay anoo qaad sadexgalka ilaahay anoo qaad galmudug baa taaganaa dhibaato ma jirto midlaan islaadoo kale ha noqoto dadka musliga ha isku darsooma Soomaaliya ha israacdo kabiya dagaal annaga ku dhalana ku kornay ilaahay ku koro kawawnay rafaad naga muuqda Soomaaliya waxaan taaganahay waqooyigii Buntland baan taaganahay ma kala lihin anaku Buntland iyo galmudug walaalaha waxaan nahay walaalaha gobolka Mudug baan nahay waxaan u mahad celinayaa ururka dhalinyarada ee gobolka Mudug shooda magaalo kaliya oo noqotay laba gobol oo loo kala dhoofay camal waxa dhacday qofka labada u kala socda labada gidi inay u fududahay inuu xamar aado ama Hargeysa u aado waa cuqdad raagtay waa isbaaro qalbiga ah waa qashinimo naga buuxda hal laga xoroobo arinta adinka la idinka rabaa inaad jiirtaan inaad taariikhdaas tirtirtaan baalkaas madow inaad badashaan xaashi cad inaad hadda wax ku qorataan Gaalkacyana mid bay noqonaysaa ma kala xirnaanayso anigu waxaan ku talin lahaa oo waliba waxa la lahaa wixii Gaalkacyo ka bilowday ma joogsadaan bal lahaay anigu waxaan oran lahaa qodobadeena maanta aan ka hadlayno qodobka ugu muhiimsan aan ku darsano waxbarashada dhalinyarada maada kamida wadaniyada in lagu soo daro iskuul kasta meel kasta ku yaalo
waxaana dhalinyarada nabadda isdhexgalka gobolka mudug ay sidoo kale ay ku guuleysteen in laisla xiriiriyo culimaa udiinka ganacsatada dhalinyarada sida uu sheegay cabdiraafac yasac oo ka tirsan dhalinyarada. bilowga fikirkeena anagu wuxuu ahaa sida aan dadka isbedel ugu sameeyno anagu inaan iska bilowno hay'adaha ugu horeeyaan ka bilowno waxa kamid ahaa in qof walba waxa la walaaleeyo qof xaafadda waqooyi degan waxa la walaaleeyo qof xaafadda koonfureed degan sidaas la mid ah qof xaafadda koonfureed degan qof xaafadda waqooyi ah la walaaleeyo qof walba wuxuu bartay qof walba qofka saaxiibkiisa qoyskiisa ayuu bartay dadkiisa iyo asxaabtiisa soo bartay way isna barteen ugu dambeyntiina labada qoys waxay yeesheen xiriir xoog leh sidaas anagu dadka saameynta waxaan ugu yeelanay inay dadku ay naga bartaan waxyaalahaas wada joogay walaalnimada iyo isjacaylka dhexdeena aan ka abuurnay ayaa waxaan ku abuurnay in dadku naga sii bartaan oo aan sii gudbino fariinta noocaas oo kaleeta. haddaba madasha dhalinyarada isdhexgalka gobolka mudug maxay ka qabteen magaalada gaalkacyo? kow sare u qaadida iyo isdhexgalka bulshada waxaad ogtiin gobolka bulshada ee ku dhaqan gobolka mudug in ay bulsho kala qaybsan aan isu gudbin muddo fara badan sidaa darteed ka dhalinyaro ahaan waxaan go'aansanay inaan ka shaqeyno isdhexgalka bulshada oo aan kor u qaadno taas oo wax badan aan ka qabanay kuna guuleysanay. labo soo nooleynta waxa weeyaan kalsoonidii bulshada dhexdeeda ahayd. saddex waxa weeyaan la dagaalanka qabyaaladda iyo jahliga. waxaad ogsoontihiin qabyaaladdu waa cunsurka ugu weyn ee sababay maaragtay kala qaybsanaanta bulshada in aysan wax wadaagin in aysan wax isku darsan sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan maaragtay ka shaqeyno sidii qabyaaladda loo gudbi lahaa. iyadoona ganacsatada ay sheegeen in xilligan ay dareemayaan kobac dhaqaale maadaama suuqa uu yahay mid xasiloon. halkan waa suuqa gaalkacyood bartankiisa ganacsatada reer puntland baan inuu ka mid ahay magacayguna waa maxamed aadan buraale ganacsiguna waa fiican yahay iyo nabadgelyada sadexgalkii waa lagu faa'iiday wax khasaaraha kuma imaan in la sii adkeeyo laga shaqeeyana waa la rabaa dadkii waa nafisay arintaas waa fiican tahay in laga sii shaqeeyana waa la rabaa sanadan dadkii annagu meel kastaan maraa meel kastaan tagnaa waxa weeye dukaan kastaan waxa ka soo gadanaa dadkuna sidoo kale noogu yimaadaa dad aysan dhici karin inay noo yimaadaan baa sanadan noo yimaada oon meeshaan intaan meheradan dhexdeeda waa fadhiisano sidaanu doonno ugu sheekaysanaa sidaan doonno ugu waagaacsanaa meelo hadda kale oo aan sida hoteelada 5 star iyo kale aan u tagnaa kuwa xagga sida qabowga kale aan u tagnaa alxamdulillaah ilaahay baa mahad iskale. waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada isdhexgalka ee gobolka mudug gaar ahaanna magaaladan gaalkacyo nashaqooyin badan oo wacyigelintu ka mid tahay oo wax alla wixii nabadgelyada caqabad ku ah ay ka mid tahana waa ka hadlayeen hal marna nafis lama qaadan dhalinyarada isdhexgalka arrintaasi barbar socdeen marna kamay daalin kamana nasan tahay sida aad idinku indhihiina ku aragteen ama cid badan oo kaleeto indhaheeda ay ku aragtay gaalkacyo isbedel aad iyo aad u wanaagsan baa ka muuqda waxaa ka muuqda nabadgelyo waxaa ka muuqda isdhexmar wada hadal iyo waxyaabo badan oo faa'iido ah oo magaalo la'aanteed magaalo ahaan karinin awalta waxay ahaan jirtay meel haddee aan la isdhexgelinin oo mar walba dadku hubaysan yahay oo nabadgelyadu ay mar walba halis ku jidho marar badanna waxbaaba ka dhici jiray oo waa lagu kala qixi jiray laakiin hadda isbedel bay keentay dhaqdhaqaaqyadan dambe. caafimaadka ee magaalada gaalkacyo ayaa kaalin ka geystay nabadii dib u heshiisiinta gobolka mudug iyagoona ku ammaanay dhalinyarada nabadii isdhexgalka gobolka mudug dadaaladii ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo sida uu sheegay Dr. Dhagacad oo ka mid ah dhaqaatiirta ugu weyn magaalada gaalkacyo ka howlgasha. marka siday waagaas ahayd iyo labadan sano oo dambe sida ay tahay gaalkacyo wax isla ma ahayn shaki ma laha beledkii waa bedelmay bulshadii especially dhalinyaradu waxay dareemeen in ay iskal suubiyaan oo isku soo dhowaadaan oo dantoodu ay tahay in ay gacmaha isqabsadaan. maamul ku-xigeenka jaamacadda gaalkacyo University Engineer Muxudiin ayaa ka waxbarasho ahaan sheegay inay ka nasteen colaadihii iyo dhibaatooyinkii ay kala kulmi jireen dagaaladii gaalkacyo ka dhici jiray. annagu ka waxbarasho ahaan madashu marka waxay noo tahay horumarka koowaad
ay bahda waxbarashadu maanta haysato muhiimadda ay noo leedahay waxay tahay khaasatan jaamacadda gaalkacyo eriyada ay ku taalla waa eriyada lagu dagaalami jiray ayay xuduudada u leedahay jaamacaddu hadday dagaaladaasi ay jireen ama xilli dagaaladaasi ay dhacayeen jaamacaddu saameyn xoog leh ayay ku lahayd ama ku yeelan jirtay sababtoo ah waxaan u dhoweyn meelaha laisku haysto mar waliba marka saameyn ayay nagu yeelan jirtay tii marka bulshada ama isdhexgalka madasha waxay ka bedeshay runtii inaan nasannay oo isleenahayba markaan in waxbarashadii ay tilaabsato oo ay dhaqaaqi karto oo horumar la gaari karo hal qof ayna xaq dara lagu dilo iyo adduunyada inay baabado ilaahay waxa la weyn hal qof oo mu'min ah xaq dara lagu dilay qofkii qof mu'min ah xaq dara ku dila ilaahay subhanahu wa ta'ala wax abaal marin u sii shan waxyaabo abaal marin u leeyahay shanta waxyaabood qofkii ku qanacsan abaal marin u helo waa inuu dadka dila way furanta qofka ku qanacsanayna waa inuu ka joogo si abaal wanaagsan u helo ilaahay wuxuu leeyahay man yaqtul mu'minan muta'ammidan qofkii qof mu'min qasad u dila fajazaa'u jahannam kow abaal markiis waxa weeye jahannamo mugalaya khalidan fiha inta galay laga soo saar maayo wax u galiimayo nabadoon iyo wax ka fujinayo ma leh oo ku waarahaya ilaahay leeyahay waqad ballahu alayhi ilaahayna wuu carada ilaahay qofka ku dhacay weyn xaris ilaahay ka fogaado wala anhu la'anada ilaahayna way ku dhacaysa naarta dhexdeeda waxa sadan wa adda lahu adaban aziman ilaahayna wuxuu u diyaariyay cadaab weyn buu ilaahay u diyaariyay walaalayaal waxaan ahay dhalinyarada gaalkacyo waxaan idinkugu nimid wax hore la idinkugu imaan jiray oo wacyigelinahay horena waa la idinkugu yimid haddana waan idin nimid waxaan idinkugu nimid waxa weeye fariinta ah war nabadda ha la qaato war nabaddu waa geed weyn oo har leh ha la harsado weeye waxaan idinkugu nimid wax kale oo dheeri ah oo hadda aan idin wadnay ma jirto baahi nabad ka weyn oo qof bini aadana uu qabana inaysan jirin baan u malaynayaa kale fariinta amaanta wadnaa waa nabadna anaga u baahnaa iyadana ma baahno dadka walaalahayna oo mudug wada dego wada dhashay dhan kastaba waa dad Soomaalinimo diinimo reer mudugnimo wax kasta wadaaga waa dad isdhalay raaqtiyaal iyo xid iyo wax kasta isku ah waa dad dadka kale iskaga sokeeya marka ayadoo saas ay tahay in haddana aan isdilno waa wax aad baan u jecelahay wax nabadda ka shaqeeya waa danaynana dantayada iyo noloshayada iyo nafsadayada ayaa ku jira inaan nabad galno oo seexano boqolkiiba 90 hadda waxay u badan tahay inaan qori wadano aad baan uga xunnahay hadaan helin dad Soomaaliyeed oo aan gacanta isqabsano oo aan isla wada joogno aan isla wada noolaano isku deegaan iyo isku dalba aan nahay aad baan soo dhaweynaa idin kale waa idin soo dhaweynaa walaalayaal dhamaantiin boqolkiiba boqol aad baan u danaynaa nimanka inaan wada dhalanay waa ogna ragga meesha inta yada meesha waxa laga yaabaa qaar inay aftiyaal u yihiin qaar inay adeer u noqdaan baa laga yaabaa annaguna sidoo kale waana soo dhaweynaa aad baan u danaynaa nabadda in la helo de waxaan fahmaana u arka inay dhib tahay nabaddu qof kasta oo Soomaaliya oo meel kasta jooga inay dan u tahay uu og yahay waa idin soo dhaweynaa taraaga aad noo soo gasheen aad baan u danaynaa walaalayaal soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada dhalinyarada walaalayaal oo gurbiga nusatay dhibka nagu haysta iyo kala qoqobnaanta nagu haysta ciidayada anagoo dad hadda diin kala sheeganaya aan ahayn dad diina ayay isku diinaan dad isku mid ah nahay xoogaa dhib oo kala shakiyo oo shaytaan ka shaqeynayo lagu kala dhex jiro
walaalaheen ay xanuujisay nasu kaga keenay aad baan ugu mahad celinaynaa inaanu nabad aanu helno oo walaalaha iyo aanu gacmaha isqabsanno oo haddii ilaahay kuu ron yahay aanu wada noolaanno waxaanu isku nahay waanu isla ognahay dad Soomaaliyaan nahay dad isku diinaan nahay dad isku diiraan nahay dad wada dhashaan nahay wiil iyo abti wiil iyo sidiis wiil iyo adeer inta waana waa dhib jidha ilaahay hana ka dulqaado waa in ku soo dhaweeyno walaalayaal haddii aad isxilqaanteen oo aad ka shaqaynaysaan aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayna waa in kala shaqaynaynaa waa in la jecelahay waa in la qaadanay waa in kugu hambalyeynayna si nabad iyo farxad la caaw ay magaalada Gaalkacyo ugu baashaalayaan oo marba dhinac ay u tagayaan iyagoo aan baqayn aan cabsanayn hotel 5 star baan tagnay markii hore si nabad ah u tagnay si nabad ah uga soo noqonay marka sawirkaasi wuxuu gudbinayaa in magaalada Gaalkacyo ee dhalinyaradeedu ay mid tahay dadkeedu ay mid yihiin isbaaraduna qalbiga ay tahay ugu dambeyn hoggaanka sare ee madasha ayaa ugu baaqiyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qurbo joogta ka soo jeeda deegaanka magacaygu waa Cabdiqani Ismaan Yuusuf gudoomiyaha golaha sare ee madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug ugu horeyn waxaan halkaan uga mahad celinayaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Mudug ee ku sugan dalka Mareykanka si gaar ah waxaan uga mahad celinayaa xubnaha firfircoon oo runtii dadaalka xooggan ugu jira sidii gobolka nabad waarta looga heli lahaa walaalayaal halkaan waxaan ku soo gudbinaynaa qorshe sanadeedka 2019 ee madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug ay qorsheeyeen waxayna u kala qorsheysan yihiin sida tan soo socota koow waxaan ugu talagalay sanadkan in la helo xarun nabadeed oo ku kacaysa $15,000 oo ah meeshii magaranaysaa laga asaasi lahaa xarun nabadeed labo baabuur ay madashu ku shaqeyso oo maadaama safarada markaan baxayno kharash badan inooga baxo waxaan u baahannahay runtii inaan helno baabuur qarashkiisuna wuxuu ku kacayaa $12,000 idaacad codka nabadda ah idaacad codka nabadda isdhexgalka baahisa ayadan runtii waa muhiim waxaan u qorsheynay $9,000 idaacadaha waxa weeyaan idaacado badan baa gobol ka jira laakiin idaacad codka nabadda si khaas ah u baahisa oo nabadda isdhexgalka nagala shaqeysa in la aasaaso ayadan waxaan aragnaa muhiim socdaallo nabadeed oo lagu kala baahinayo degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka Mudug iyo guud ahaan miyiga iyo magaaladaba ayadana waxaan u qorsheynay $5,500 tartamo ciyaareed sida orodka marathonka kubadda cagta iyo sportsiyada noocyada kala duwan ayadana oo aan ugu talagalay isdhexgalka dhalinyarada iyo maaragtay abuuridda jawi nabadeed 6 waxa weeyaan billboards waxa la yiraahdo ama boorar waaweyn oo aan ugu talagalnay inaanu ka taagno magaalada ma garanaysaa meelaha shawaaricda ah iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan si aan halkaas ugu baahino fariimaha iyaga iyo halkudhigyada nabadeed ee aan qorsheynay 7 tartan aqooneedyo waxaanu qorsheynaynaa inaan hadduu lahayd maayo tartan aqooneed u qabanno dhammaan iskuulada secondaryada ah ee ku yaala magaalada Gaalkacyo awal tartan aqooneedyada waxaa loo qaban jiray si gooni ah laakiin waxaan rabnaa dhammaan iskuulada ee ku kala yaala koonfur iyo waqooyi dhinac kastaba ha ahaatee ama bari iyo galbeed ha jireen inaan dhammaantood aan u qabanno tartamo aqooneed taasoo isdhexgalka iyo isfahanka qayb weyn ka qaadan doonta sidoo kale tartankaas aqooneedkaas waxaan u qorsheynay lacag $1,500 ah sidoo kale billboardska ayadan iyo $300 kaamirooyin aan ugu talagalnay xogta iyo macluumaadka madasha in lagu aruuriyo ama lagu diyaariyo ayagana waxaan ugu talagalnay $1,200 isugeynta wadarta kharashkaas aan qorsheynay waa $49,000 iyo $49,900 ugu dambeyn waxaan idinka rajeynaynaa insha Allah tacaala kariim inaad naga aqbali doontiin inaad naga taageertaan
baahiyaha kharash ee aan gobolada dheexooydin tii ugu weynay gobonnimo u dirirkii midii goolka dhalisay leegada gunteeday gurigii xorriyadday calanka shangeeska midii golaha keentay geesiyooni weyn dhalaa gaalkacyoy maxaa dhacay gaalkacyoy maxaa dhacay